anigu luuqada waxaan ku heestaa caruurta luuqad gooni ay leeyihiin caday boono caanaha labeentooda dukaankaas ay gashaa caleenta shaahay soo qabataa waxyaabo badan waxaa jira oo caruurta le loogu talagalay dadku waaweyn haba dhahan muxuu ku heesayaa waxa uu ka heesay nolosha ka jirta guryaha Soomaalida iyo guud ahaan dareenka bulshadiisa labadan kun waa lindhanaan jikadan kula jooga iyo aniga cajiinka ka qasaya ayaa ka mid ah heesiisa jihadii fanka iyo muusiga Soomaalida u bedelay jiha kale haddaba waa kuma ninkan mucjisadii fanka ee qarniga noqday Sharmaarka Cabdinaasir Maxamed oo caan ku ah naynaasta Sharma Boy sanadkan sii idlaanaya ee 2020ka waxaa loo aqoonsaday xidigii fanka Soomaaliya fanka goormaad ku soo biirtay waa tuma heestii kuugu horeysay su'aalahaasi waraysi hore looga qaaday ayaa lagu weydiiyay fanaanka balse anigu waxaan ay walaalkiis ka weyn ugu horeyna waxaan weydiiyay bal inuu ii sheego haddii uu wax ka xasuusto caruurnimadeennii hadba ogta caruurnimadii iska fooda ahaa iska fooda waxaa jeclaa weeradoo kaleeto loofa ku ah meel weer lagu dheelaayo waxaa waaye meel Afrigooley qorax kuleelka qada ayadana loogu yeeraayo aniga adiga iyo atiima ahayn garoon badan oo maaragtay waxaa jiro ku yaalo inkastoo aniga ciyaal Madiina ahayn marka loo Muqdisho jiir maskiin waliba waxaa waaye garoomadii San Siro ayaa ka mid ah Afrigooley xaafad dhexdeeda lagu ciyaarayo banooni laamiga dhexdiisa lagu ciyaarayo waxyaabo badan adiga iska jira ma fahantay adduunkan waxaa u jeclaa maalinka dugsiga fasaxaya waxaa waaye maalmaha oo aan ugu jeclaay ahayd oo igu farxadda badneed dugsiga fasax waaye markii la laho ninac xataa ma soo jirin la qaybinayo iyo marka nin yahow wakaas horta yaraanteen waxyaabahaas ka mid ah waxaa ka xasuusto kolley adigu laftarkaaga ma aqaan meel kaaga dhuntay fanaana aan jirto markaa yareedo fanka adaaba iga jeclaa fahantay oo loo fogaan jira adilaan kaa bartay heesaa adaa igu aqaani jiray waagaas jecel inuu ka ayna ma aqaano hadda ayaamahan dambeeto waxaa waaye kolley xilli waxaa jirta xataa maaragtay saxafinimada aad u baranay saxafinimada ay kaxin jirtay maaragtay oo hadda qofku meel ku fiicneen maaragtay saxafinimadan dhib badan loo maray rabtaa horta waxyaabo badan oo rafaad badan in la soo baxo meel isugu imaado la iska fadhiyo oo la iska joogo cabaara buuqa habeenkii la soo noqdo wixii ku caajisaan yaraantiisii waxa uu ahaa nin aad u firfircoon kaftan badan oo dadka xaafaddu ay aad u yaqaaneen xitaa si aan aniga lii aqoon waxyaabaha la yaab kale ee nolosheenna quseeya ayaa ah inuu yaraantiisii jeclaa isagu saxaafadda aniguna aan jeclaa fanka kulan wacan oo wanaagsan asxaabteeda akhyaarteeda halkani aad naga daawanaysaan waa TV-ga qaranka Soomaali Channel haddee aniguna waa Sharmaarka Cabdinaasir Maxamed Sharma Boy wariyihiini kolley dareemaysaa niyow maaragtay wixii markii aadan maaragtay aadan cashar umarin ma fahantay hoogaha wariyinimadan waxaa lalahay furnaanta iyo maaragtay kolley qof aan aftahan wariye ma noqon karo waxyaabaha ay ninkan heesihiisa dadku uga yaabeen ayaa ah inay taageerayaashiisa aad ugu badan yihiin carruurta ay da'doodu ka bilaabanaysa 5 jir ilaa 12 jirka maadaama aysan sida heesaha fanaaniinta kale ku adkeyn xifdintooda kolley hadda soo noqdo niyahow fanaaniintu way kala duwan yihiin fanaaniinta waxay ku heesaan maxaa la yiraahdaa kuwa waxay ku heesaan wacyigelin kuwa waxay ku heesaan mowduuc gaar ah ay uga hadlayaan ugu soo talagaleen kuwa anta ku heeso kuwa jaceelka ka heeso ilmahan waxa shaqo kuma lahan oo ogtaa waa ilmo yar yar ah anigu luuqada waxaan ku heestaa caruurta luuqad gooni ay leeyihiin caday boono caanaha labeentooda dukaankaas ay gashaa caleenta shaahay soo qabataa waxyaabo badan waxaa jira oo caruurta le loogu talagalay dadku waaweyn haba dhahan muxuu ku heesayaa laakiin caruurta laftirkooda maxaa la yiraahdaa luuqaday leeyihiin
ayaga laftirkooda waxaa loo baahan yahay ilgaar inuu fiiriyo marka riyo marta farxad zaa'id ah waxaa ii ah maanta oo aan aad ugu faraxsanahay oo iiga duwan wareysyadii hore barnaamijyadii hore aan u qabtay waxyaabihii hore dee walaalkay ila dhashay aniga maxamed cabdinaasir maxamed soo faysane waxay wareysanayo walaalkaygu hooygu aabba ah way iiga duwan tahay kolley maanta waxaa la dhihi karaa kolley wareysi guud iyo wareysi gaar ahaaneed baa u fadhiyaa qaar badan oo hamigiisa hoos u dhigi jiray muddo aan dheerayn ayaa hadda u hambalyeynaya qof kasta oo ku dadaalay inuu ka midho dhaliyo hadafkiisa wuu gaaraa xitaa haddii ay dadka iyo jinkuba la dagaalamaan maxamuud soo faysane TV-ga Somali Channel Muqdisho.